بسم الله الرحمن الرحيم قاعد وأنا سعد الجامع أحاس كعبد السلام أحمد عقال كنا كحران مقالة مقدشة وحلا حدا سدح بلاد كهرة سوق مدارك مقدشة كصدولية أو صدولية مقالة هرقيسة قدرنا أن نقسمين إن مقالة هرقيسة waxaan ogaanay goorshantii barkii in la xidhay sabab loo xidhayna aan la garanaynin marka wuxuu ii sheegay inuu la xidhay laakiin aan wax loo xidhay aan garanaynin qolo booliisuna ay qabatay warwar kama muuqan xaaladiisuna way fiicnayd laakiin imika warwarkii baa taagan waayo 3 bilood ka hor qof la qabtay oo noloshiisii la haynin waad garan kartaa xaaladiisa xaaladda qoyskiisa waad garan kartaa mashaakilka iyo dhibta soo gaari karta cid kasta oo la xidhiidha ahliyaadkii iyo cid kasta oo maxaan ku dhahaayay doonta inay soo aragtay loo diiday la maqlin meel ku xidhan la ogeyn maxaan ku dhahaayay waxaan loo sheegay maxkamadaha iyo xeer ilaaliyaashii inaanay wax dambiye loo haynin looyaradii loo diray aan u qabanay aan kiiskiisii loo dhiibin sifa sharci darro loo haysto xogtana soo gaaraysa waxay noo sheegaysaa in sirdoonka Soomaaliya uu xidhan yahay shakhsiga la yiraahdo Fahad Yaasiin marka waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya dibanaha dulmiga loo haysto in loo soo daayo aan wax damiyana loo haynin anagoo Hargeysa jooga xaaskiisii intaaba mashaakilaad iyo dibba nahaysatay marka waxaan doonaynaa inaan wax alla lagu hayo aanu jirin de gacan cadow kuma jira waxa weeye waa nin Soomaaliyeed oo muwaadina oo iska shaqaysanay xoogsada ahaa hay'adaha ajnabiga u shaqaynayay inna dambi kama galin damina laguma hayo marka waxaan codsanaynaa in loo soo daayo Cabdisalaam Axmed Cigaal dawladda Soomaaliya Somaliland waxaan weydiisanaynaa muwaadinka reer Somaliland in ay noola hadlaan cid ka mas'uulaha ama soo sheegaan Cabdisalaam ay laga xiriiri karo waayo wali al'aan qof u hadlay iyo qof u dhaqaaqay ma hayno dawladda Somaliland adduunka oo dhan waxaan weydiisanaynaa inaanu qofkaasi dambi lahayn dulmi ugu xidhan yahay magaalada Muqdisho iyo sifa sharci darro ah